السلام عليكم kanaalkeena theory iyo cashir hor leh insha allah ugu horeyn waxaa idin leeyahay walaalaha ku xiran kanaalka kana faa'iideysta jimco wanaagsan waadna ku mahadsantihiin dhiirigelintiina insha allah ugu horeyn haddii aan bilaabo bismillah waxaan sharaxaynaa insha allah xawaaraha lagu socdo wadada loo yaqaano autoway snail height of autoweg xawaaraha loogu talagalay in lagu socdo autowega who snail je mag rijden inta xawaarahada uu noqonaya lagu ogol yahay moet je eerst aan vooral kijken ugu horeyn iyo gebi ahaanba inaad fiirisaa lagaa rabaa aantal rijstroken dhowrka leen uu wadada ay tahay labo scheiding tussen de rijrichtingen yacni kala barka lagu kala baray wadooyinka gescheiden door een streep miyaa lagu kala baray riigo keliya gescheiden door een middenberm miyaa lagu kala baray wax loo yaqaano macnaa middenberm aan daarna kadibna naar het geweest waarin je rijdt waxaad fiirinaysaa marka ugu dambeysa insha allah gobolka aad ku socoto belgiya waddanka belgium telt 3 gewesten waxay tirsataa 3 gobol the 3 gewesten zijn 3da gobol waxay kala yihiin Vlaanderen gobolka looga hadlo luqadda Hollandeeska iyo gobolka loo yaqaano Brussels magaalo madaxda iyo gobolka loo yaqaano Wallonia oo looga hadlo luqadda Faransiiska tusaalaha ugu hore een rijstrook per rijrichting een rijstrook per rijrichting hal haad ama hal leen halkii jihaba hadday baabuurka buluuga fiiriso wuxuu saaran yahay hal leen ama hal haad uu saaran yahay ama hal wado go waaye ama hore u socdaa baabuurka guduudka ama casaanka isagana wuxuu saaran yahay hal leen waana back haddii aad ku wado gaariga Vlaanderen qaybta Nederlandiiska ama gobolka Brussels xawaaraha wuxuu noqon doonaa insha allah ama ahaanayaaba 70 xawaaraha wuxuu ahaanayaa 70 haddii boor kale uu ka bedelo oo macnaha xawaare kale ay ku qoran tahay matalan 50 ama ka badanba 90 boorkaas ayaa ku xukumaya insha allah haddii aad joogto ama gaariga ku wado Wallonia qaybta Faransiiska xawaarahaada waa 90 waxaa laga yaabaa in 90kaasi lagaa bedelo oo lagu qoro 70 mar walba adiga xawaarihii meesha lagugu qoray ayaa ku xukumaya insha allah tacaala meerdere rijstroken dhowr haad ama dhowr leen Vlaanderen haddaad joogto 70 iyo gobolka Brussels 70 ku soconaysaa haddii aad joogto Walloniana 90 haddeertaan gaariga buluuga wuxuu haystaa hal leen keligii riiga isku xirnaa ayaa macnaha u dhaxaysa labada baabuur oo kaleetana waxay haystaan laba leen still ama wali xawaaraha wuxuu ahaanayaa Vlaanderen iyo Brussels 70 haddii aad joogtona Walloniana 90 haddii aad joogto wadada autoweg loo yaqaan ama ku wado meerdere rijstroken dhowr haad ama dhowr leen rijrichtingen ama dhowr jihood gescheiden oo lagu kala baray lagu kala qaybshay door een streep riiga keliya ama xariiqmo keliya haddaad joogto Brussels iyo Vlaanderen 70 ayuu ahaanayaa xawaarahaada haddii aad joogto Walloniana wali xawaarahaada waa 90 haddii xawaaraha lagaa bedelo 70 lagu qoro waad ku soconaya 70 insha allah haddii gobolka Vlaanderen xawaaraha lagaa dhigo 90 waa ku soconaysaa 90 insha allah waa laba leen ama laba rijstrook ama laba haad oo go ah iyo laba leen oo back ah xawaaraha weli still wuxuu ahaanayaa 70 iyo 90 maxaa yeelay
waxaa lagu kala qaybshay riigo keliya. Meerdere stroken dhowr leen dhowr haad richtingen iyo jihood ama dhowr jiho gescheiden oo lagu kala qaybshay mise lagu kala barayba door middenberm waxaa loo yaqaano middenberm. maxaa loo yaqaana middenberm? middenberm waxaa loo yaqaanaa een verhoogd groen strook leen ama haad yaroo yacni coos loo yeelay iyo sidoo kaleete vangrails iyo bir ayaa u dhexaysa ama betonblocken blocketi ama dhagaxaan. haddii waddada ay tahay laba lane go laba lane back dhexdana ay leedahay middenberm xawaaraha wuxuu ahaan doonaa insha allah deze regel geldt heel België. Vlaanderen joog ama Brussel ama Wallonia haddayba tahay waddada 2 keer 2 laba lagu dhuftay labo plus middenberm ayna leedahay dhexda wax loo sameeyey aanan ahayn riigo haddaa loo sameeyey yacni groen strooga ama vangrail ama betonblock xawaare wuxuu ahaan doonaa insha allah ama uu yahaybo 120 ugu badnaan. midda kale waddada autowega xawaare loo yaqaano minimum ma qabo wuxuu leeyahay keliya maximum ama waa 70 ama waa 90 ama waa 120 ama waa 30 ama waa 50. xawaara مثلا highwayga wuxuu leeyahay xawaaro ugu yaraan minimum ah 70 laakiin autowega wuxuu leeyahay xawaaro ugu yaraan macnaha ma qabiyo insha allah. midda xigta autoweg wadda autoweg ah buitodabebo.com magaalada banaankeeda ama gewoonewegen ama waddooyinka caadiga ah haddii aad joogto Vlaanderen iyo Brussel weli waa 70 haddii aad joogtona Walloniana waa 90. waddooyinka loo yaqaano N-wegen oo enta ah ayana sidoo kale haddaad joogto Vlaanderen iyo Brussel 70 xawaarahaada haddaad joogtona Walloniana waa 90 insha allah. autoweg binnendabebo.com waddada autoweg loo yaqaano magaalada gudaheeda Vlaanderen iyo Wallonia. markaan Vlaanderen iyo waxaa israacay gobolka Faransiiska ama gobolka Hollandeeska iyo gobolka Faransiiska israaceen. haddii la joogo autoweg ama aad ku socoto autoweg oo magaalada gudaheeda ah xawaaraha Vlaanderen iyo Wallonia waa 50. xawaaraha gobolka Brussel ama magaalo madaxdane waa 30 magaalada gudaheeda insha allah. marka hore waxaa israacay Vlaanderen iyo Brussel wuxuu ahaa xawaarahooda 70. haddana waxaa israacay Vlaanderen iyo Wallonia oo ah xawaarahooda 50 markii la joogo autoweg magaalada gudaheeda. haddii la joogo magaalada gudaheeda autowegna gobolka magaalo madaxda waa 30 waana Brussel. waxaa isweydiin mudan sidee ku ogaanay inaad ku socoto Brussel ama Vlaanderen ama Wallonia? haddii gobolka Vlaanderenka ku socoto wuxuu leeyahay calankan shabeelka ah jaalaha ah waxaa ku socotaa gobolka loo yaqaano Vlaanderen ama qaybta looga hadlo luqadda Nederlandiiska dadka inta badan way garanayaan. haddii aad ku socotana gobolka Brussel ama magaalo madaxda waxaad ku garanaysaa ubaxan iyo lofkan insha allah. haddii aad ku socotana Wallonia waa calankan ayuu leeyahay asigana diiqa ku sawiran insha allah tacaala. sidoo kale sidee ku ogaanaysaa ama maxaa loo yaqaanaa vangrail aan dhehe wax loo yaqaano middenberm maxaa loo yaqaanaa middenberm? middenberm waxaa loo yaqaanaa 3 sheeyo verhoogd groen strook leen ama haad yaro macnaha coos leh kow iyo vangrail iyo bir taasi iyo betonblocken iyo waxa loo yaqaano dhagaxaanta ama gidaarka loo yaqaano insha allah. betonblocken labadan sawir waxay ku tusayaan kaliya dhagaxaanta u dhaxaysa waddada. hadda waddadani waxaa kala qaybisay dhagaxa ama blocketiga labadan waddooyinkana waa go kuwana waa back. kan xiga sidoo kale dhagaxaantan ama blocketigan
ayaa loo yaqaanaa betona block. Hadday waddadu tahay laba leen oo go ah, laba leen oo baag ah, ayna u dhaxayso ama midhabiram ama cawskii ama vangrailkii ama macnaa betona blockii, waa leen cagaaran ama bir ama sidoo kaleete dhagaxaantan. midda ugu dambeysa insha allah, verhoogde Kroonstrook. Leenka cagaaran waa kan caws ayuu leeyahay, isna waxaa loo yaqaanaa midhabiram, yacni kala qaybka dhexda. haddii aad rabtana wax la dhaho vangrailna waa birtan, waxay kala saaraysaa oo keliya waddada, kuwana waa go, kuwana waa back. insha allah halkaa ayaa inoogu dambeysa cashirkeena maanta hadduu ilaahay idmo. waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.